Somaliland sidii gudoomiyuu sheegay waa dal hodana laakiin weli lagu tilmaamayo inuu dal faqiir yahay. Somaliland waxay hodan ku tahay xoolaha nool bad 850 kilomitir ah oo aan laga faa'iideysan. Waxaan u mahadnaqayaa marka hore wasaaradda maalgashiga iyo wasaaradda madaxtooyada oo gacan siisay iyo ciddii kale gacan siisayba in shirkani uu qabsoomo. waxaan kaloo mahadnaqayaa 80ka maalgashade ee maanta ka soo qayb galay shirkan ee ka kala yimi 23ka dal ee dunida ka tirsan. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. hore inkasta aan ugu mahadnaqay waxaan kaloo mahadnaqayaa mar labaad DP World oo runtii 10 sano ka hor ayay gashadeen dekedda berbera $400 milyan. taasi waxay soo jiidisay indhaha adduunka. waxaana Somaliland intii xukuumadda cusub timi aad u dhiirigelisay inay Somaliland tahay dal degan siyaasiyan nabad ah soo dhaweynaya maalgashiga dunida oo dhan meeshu ka imanaya ba ka yimaado. hadduu dalalka carbeed walaalnay ka imanayo dalalka Afrikaan walaalaha nahay iyo dhammaan dunidaba Asia Europe Maraykan cid kasta oo soo dhaweynaa muwaadiniinta dadka Soomaaliyeed dhammaantood iyo dhammaan ajaanibta dunida oo dhan ciddii maalgashanaysa Somaliland ba waxaan leenahay albaabadu way furan yihiin. Somaliland sidii gudoomiyuu sheegay waa dal hodana laakiin weli lagu tilmaamayo inuu dal faqiir yahay. aniguna safaradaydii intii ugu badnayd waxaan dhiirigelinayay maalgashiga. 3 jeer baan tegay Imaaraadka, Kenya waan tegay, Qatar waan tegay, meeli kale iyo cid kasta oo inoo timaadaba waxaanu ku dhiirigelinaynaa in Somaliland ay aad iyo aad ay tahay fursad dahabiya maanta oo sida loo soo kala horeeyo ay dadkuna uga faa'iidi doonaan haddii la yiraahdo. Somaliland waxay hodan ku tahay xoolaha nool. waxay hodan ku tahay dhul beereed dihin. waxay hodan ku tahay bad 850 kilomitir ah oo aan laga faa'iideysan. waxay hodan ku tahay waxyaabaha laga dhaliyo energy-ga nadiifta ah hadday dabeyl tahay hadday qorrax tahay hadday hydrogen tahay. waxay hodan ku tahay meelaha munaasibka ku ah dalxiiska. waxay hodan ku tahay shidaal. 100kii sano ugu dambeeyay waa la soo saarayaa aan cid soo saarin. waxay hodan ku tahay gaas laakiin weli noomay suurto gelin iyadoo macdanaha kala duwan qiyaastooda lama yaqaano. laakiin waxaynu rumaysanahay in dahabkii waa la soo saaraa imaka inkastoo maalgelin weyn oo tii aanu doonaynay aanay ahayn laakiin shirkadaha maalgeliyay yaryar waa u mahadnaqaynaa. cid kasta waxaa macdanaha ugu qaalisan dunida oo ay ka buuxaan. Dr. Bailey markuu imika hadlayay wuxuu yidhi you name it you get it. aduu wax sheego halkan waad ka helaysaa. markaas waxaan soo dhaweynaynaa financial sector-ka hadday yihiin bangiyada hadday yihiin shirkadaha caymiska internationalka. waddankani waxaas leeyahay hadduu helo the investmentka saxda ah
ونقول دونا دلالك وقني سندوني ده هدي الله يرحمه وهان حسوستي حكمته أبوال هدراوي وهو ينقاد يميني قادك وحلقيا وينانا سيدات دادتكو مركا وحو يلي هدي يلو الدحلي هاي قادك الدحد لها أنا حيا بيوجي والله يا 7 stop isagaan ku saarayn oo kula saayirayo sixirkiisu kululayn ee orod 7 store gad waa sidoo ku leeyahay mulkiilaha 7 store oo siiqad suugaamaysan macmiishiisa kula hadlay ku soo dhawaada 7 store oo uga barateen adeegyo fiican imikana adeegyada uga barateen diisi laba laabaya oo qof kasta si delivery ugu geynaya meel kasta iyo markasta uu joogo taasoo heegan markasta weydii yihiin shaqaale firfircoon iyo adeeg hufan isagaan ku saarayno kula saayirayo samcad iyo karaamo laha sixirkiisu kululay ee orod 7 store gad 7 stop saaxiibka danyarta iyo saaciidaha macmiilkiisa store waxa aad ka helaysaa nooc kasta oo ah adeegga xaafadaada oo ay qayb ka yihiin raashinka iyo bagaashku dhammaan baahiyaha faamligaaga oo jumlad iyo tafaariikha store waxa uu ku yaalaa wadada 100 khaasatan agagaarka istaankii hore ee basaska jijigaya waxaanu dhanka galbeed ka saaran yahay dhismaha jaamacadda Armis gaar ahaan kambaska freshka ee ku jeeda wadada 150 hore u gaad 7 stop faahfaahin kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda